خريطة عشر كوكوات قيحدة خريطة واشحن كجراب كقيب كميد دولك دوشة سريع أما قيب دولك كميد أو لقو موجي أوغا في السن وحا أي نقون كرتا وراق صبورات أمدر بإيق صبر كهوس كويال وخريطة دولك الصوماليا qaybaha khariidada iyo adeegsigeeda si loo fahmo waxa khariidadu matalayso waxa ay adeegsanaa waxyaalo gaar ah oo inagu haga in aan garanno macnaha khariidada waxa loo yaqaan qaybaha khariidada qaybahaas waxa ka mid ah ciwaanka qaabka furaha iyo qiyaasta khariidada fiican waa in ay leedahay qaybahan ba ciwaanka waa magaca khariidada iyo una badanaa ku qoran yahay khariidada korkeeda ama hoosteeda qaabka waa xuduuda khariidada ku sawiran tahay furaha waa tiro calaamadaha oo loo adeegsado khariidad iyo waxa ay matalayso calaamada badanaa waa sawiro yaryar ama xarfo muujinaya walxaha runta ah ee laga helo meesha qiyaasta waa xiriirka ka dhaxeeya fogaanta khariidada iyo fogaanta runta ah ee dhulka marka la sawirayo khariidada waxaa lama huraan ah in la soo yareeyo baaxadda meesha la sawirayo si ay warqadu u qaadi karto yareynta oogada dhulka waxaa suurtagal ka dhigi kara adeegsiga qiyaasta tusaale ahaan 1 sentimitir oo khariidada ah waxa uu u taagan yahay 10 kiiloomitir oo dhulka dushiisa ah برقد نكي بار فريستو بيني شيك بافينايو برقد نكي بار فريستو بيني شيك بافينايو جاجي او بختي بساستو بنتي سوكا بديو بولاي برتان وحبرتان برواخ قارني